wiilkii dhalinyarada ahaa ee hantidu ay kaga gubatay suuqa weyna waaheen kaasoo warbixin oo Bulsha TV ka diyaariyay dunida caalamka si weyn u saameysay taasoo dad fara badan ku kaliftay inay daydayaan Maxamed si ay caawiyaan. Maxamed warbixintaas waxa uu ku sheegay inuu socdaal ku joogo magaalada Hargeysa cid aanu haysan isla markaana aanu haysan kirada wax uu isaga bixiyo. Haddaba hablo u dhashay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa ilaahay dartii Maxamed hoolka uga soo kaxeeyay waxaana ay keeneen gurigooda intay hawl u dhamaanayaan si uu halkaasi u joogo iyagoo halkaasi ugu diyaariyay wax walba Maxamed u baahan yahay si aanu mar dambe dhibaato dareemin. Hadda waxaan ku sugannahay guriga Maxamed uu joogo waxaana laga keenay hool ku yaala magaalada Hargeysa. Maxamed waxa garab qabatay oo gurigaasi keentay Najax oo ah gabadh kamida dumarka reer Soomaaliyeed u damqatay markii ay klibkaas aragtay waxaana sidoo kale Najax Maxamed guddoonsiisay $900 oo Najax loo soo wakiishay oo laga soo diray dalka Ingiriiska ma jeclin ku dheeraado bal ugu horreyn waxaan ku soo dhaweyn doonaa Najax waanu mahad celinayaa Bulsha TV iyo walaalkii Cabdulqaadir Coday Maxamed Yare xalay baan daawaday klibkiisa markaan daawaday wallahi aad baan uga calool xumooday way qofku masiibada Hargeysa ka dhacday horta Ilaahay ka nabad geliyo dhamaan oo Ilaahay cawad khayr qabaha ka siiyo shicibka reer Hargeysa qof walba wuxuu haysta ayaa u ahanti ka $100 haysta iyo ka $1 bilyan ka gubteen qof kasta wuxuu haysto ayaa hanti u ah Maxamed xalay soo markaan klibkiisa arkay waxaan la xiriiray Islaaniya Eedah oo joogta dalka Ingiriiska marka waxay u soo dirtay lacag $900 lacag $900 ayaan subaxii saaka ula kalahay waxaan tagay hotelka uu degan yahay markaan tagayna waxaan arkay Maxamed xaaladdu ku sugan yahay iyo sida uu yahay marka waxaan gartay in yaro walaalkay ah inaan soo kaxeeyo gurigayga inta uu anbabaxayo oo magaalada ka tagayo uu ka anbabaxayo gurigayga iskaga noolaado marka insha Allah inamada Bulsha TV ba maanta duurkii guriga noogu yimiday soo booqday waxtarna u geystay Maxamed $900 ee ku siisay waa kan jazaakumullah khayr ilaahayna bedel khayr qaba ku siiyo waxaan rajaynayaa adoo faraxsan inaad Hargeysa ka tagi doonto insha Allah Maxamed walaashaa ku garab istaagtay gurigeedii bay ku keentay hadda dareenkaagu waa sida shalay maanta alxamdulillah waa fiicnay dareenkay markii hore wuxuu ahaa walwal baa ugu jiray hadda laakiin alxamdulillah waxaan haystaa shacabkii dhamaan Somaliland oo garab siiyay meel kasta joogaanin ha ahaato dumar ha ahaato rag garab weyn iyo ganacsada ha ahaato ay yimaadeen kuwa soo waca iyo kuwa kale iyo meel kasta dunida laga soo wacay insha Allah waxaan jeclahay anoo faraxsan inaan Hargeysa ka baxo hadii Ilaahay nafta keeno waasoo Ramadaan waxa u bariyaa wixii muslima inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qaado dhibaatada anna alxamdulillah rabbil alamin waxaan rajeynayaa in anna walaalahay kalena oo hantida ka gubatay inaan la dhaqmado inaan laftiina u taariijin doona aan wixii liisiyay inaan wax ka sii arjin doona hadii Ilaahay nafta keeno maayarka hawshaadii ma gaadhay maayarka maxaad warka haysaa marka ku